بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كني وعشر كمادة فرمكولوجيا إن شاء الله ما أنت وحن قاضينا قيبت اللي يقانو تكسولوجي تكسولوجيا وبرشة وحيلة سنتا كجور سداودا وما هاي فرمكولوجيسي farmacologist-ga wuxuu qiimeyn ku sameeyaa waxyaabaha kala ah waxa ugu horeeyo waxtarka iyo waxyeelada daawada. Farmacologist-ha ama qofka ku takhasusay barashada daawada ama bartay aadna u yaqaana wuxuu ogaadaa ama qiimeyn ku sameeyaa waxtarka iyo waxyeelada daawada. labo kormeero sida saxda ah ee daawada loo isticmaalo inuu kormeero. qodob kale daawadan sida ay u shaqeyso iyo waxyaabaha ay markaas daaweynayso ayuu farmacologist-ha xoog u saaraa. ciwaan kale waxaa loo yaqaanaa ilaha daawada laga soo saaro oo ah source of drugs. ilaha daawada laga soo saaro mas laga helo waa 4 il ama 4 qayb. afarta qaybna waxay kala yihiin waxa ugu horeeya plant source waa ilaha laga helo dhirta, animal source ilaha laga helo xayawaanada, mineral source ilaha laga helo macdanta, iyo synthetic sources. synthetic sources kaas oo ah daawooyinka kiimikaadka. marka plant source waa daawada geedaha laga soo saaro, animalku waa daawada xoolaha laga soo saaro, mineralku waa daawada macdanta laga soo saaro, sidoo kale synthetic drugs waa daawooyinka kiimikaadka. mid aan qaadan doonaa qodob koowaad waxa ugu horeeyo qayb loo yaqaan plant source waa maxay ilooyinka dhirta laga helo ee daawada laga sameyn karo. qaybtan plant source waxay tahay dhirtu waa waxyaabihii ugu horeeyay ee laga sameeyay daawada. dhirtu waa waxyaabihii ugu horeeyay ee laga sameeyay daawada. waana midka ugu badan ilaa iyo hadda daawada laga sameeyo. dhirtu waa midka ugu ballaaran marka la barbardhigo waxyaabaha kale ee daawada laga sameyn karo. daawooyinka waxaa laga soo sameeyaa qaybaha kala duwan ee geedka, sida waxaa ka mid ah geedka wuxuu leeyahay leaves oo caleen ah. caleentaasna waxaa laga sameeyaa daawo. si la mid ah waxaa kaloo laga sameeyaa flowers oo ah ubaxa waxaa laga sameeyaa daawo. fruits oo mirihii waxaa laga sameeyaa daawo. seeds oo ininta ah waxaa laga sameeyaa daawo. roots oo xididkii ah waxaa laga sameeyaa daawo. bark oo ayadana ay tahay jilifka waxaa laga sameeyaa daawo. sidoo kale qodobkan u dambeeyana waxaa loo yaqaanaa stem oo jiridkiya. waxaan ugu jirnaa qaybta plant source-ga. waxaan qaadan doonaa leaveska caleenta maxaa laga sameeyaa. qodobka koowaad waxaan qaadan doonaa leaveska maxaa laga sameeyaa. caleenta inta badan waxaa laga soo saaraa daawooyinka loo isticmaalo qufaca iyo xabka feeraha ayaa loo isticmaala oo ah component of the cough syrup ay ka samaysan tahay. sidoo kale waxaa laga sameeyaa daawooyin kale oo badan. caleenta geedka waxaa laga sameeyaa waxyaabaha loo isticmaalo qufac joojinta, waxyaabaha loo isticmaalo qufaca iyo xabka feeraha ayaa loo isticmaalaa caleenta xoogkeeda oo ah geedka ku samaysan yahay. sidoo kale qaybta loo yaqaan flowers ama ubaxa inta badan waxaa laga sameeyaa daawooyinka looga hortago xanuunada, medication of the opiate sida daawada mirvinka ah iyo kuwa kale oo xanuun baabi'iyaal ah ayaa loo isticmaalaa. qodobka saddexaadna waa fruits oo mirihii ah. miraha waxaa inta badan laga helaa daawooyinka loo isticmaalo caloosha iyo bangaha ayaa laga helaa miraha oo fruitska. qodobka afraad waxay tahay seedska ama ininta. inta badan waxaa laga soo saaraa daawooyinka loo isticmaalo neerfayaasha ayaa laga helaa. qodobka shanaad waxay tahay rootska oo ah xididka. xididka inta badan waxaa laga sameeyaa daawooyinka loo isticmaalo matajoojinta iyo wixii la mid ah ayaa laga helaa. inaa fahanto waan filayaa qaybtaasi. qodobka lixaadna waxay tahay ugu dambayso steamkii. steamka oo jiridka ah inta badan waxaa markaasi laga sameeyaa daawooyinkani lagu dejinayo xanuunada murqaha ee loo yaqaan muscleska ama daawooyinka suuxinta ee loo yaqaan anesthesia. marka qaybahaas waa qaybaha dhirta laga heli karo ee daawada laga sameeyo.
ciwaan kale oo ku xig waxa loo yaqaanaa animal source ciwaankan ayaan ka bilaabi doonaa insha Allah next video halkaas aan ku soo koobiyaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.